maxaa ka ogtahay viruskan socdo sidee ku ogaan kartaa in aad qabtay viruskan waxaasoo dhan videogan ayaan iigu sheegayaa ka warqab la soco Excuse me, sir. Sir, you're going to have to come with us. No, yeah. waxaan idinkala soo hadlayaa magaalada Minnesota gaar ahaan Minneapolis waxaan rabaa arrimo badan inaan iga dabageeyo oo coronavirus meeshuu marayo iyo xaalka uu hadda ku sugan yahay viruskii ku soo tirbatay hadda waxa laga helay magaalooyinka kamid ah Washington, California, Chicago oo hadda noo jirto 4 saacadood 3 saacadood meelahaas marka ummadii oo dhan hadda ka wada cabsi qabto coronavirus iyo waxa uu yahay horta waxaan ka hadlo coronavirus macnaheeda iyo waxa uu yahay wuxuu ka saabsan yahay ayaa waxay tahay waa cudurro badan oo iskugu imaaday oo waxa kamid ah pneumonia oo Soomaalidu u taqaano TB show fluga ay u taqaano hargabka adiga ilaa 5-6 cudur oo hal virus ah ka kooban yahay ilaa hadda dhaqtariinta iyo scientists-yaasha ayaa ku mashquulsan sidii looga hortagi lahaa mase kiniinigii mase vaccine-ka la isku duro oo ka hortaga cudurkaas ah maanta waxaa soo baxay vaccine-kii oo la sheegay inuu soo gaaray dalka ay qaadan doonaan pretty soon lama oga sida ay u saameyn doonto mase sida ay vaccine-kan u shaqeyn doono ayadoo lagu mashquulsan yahay horta ka hortaga dhinacyada elboorada waxa aan ugu cabsi qaba koodu hore ayaa waxay tahay Afrikada waxa laga helay Tunisia, Algeria, Nigeria, Egypt iyo Kenya waan isleeyahay laga yaabo because Shiineska inta ugu badan xaggaas ay hadda joogaan oo shaqo badan bay ka qabtaan cabsideedii ugu weyn waxay tahay dalka Soomaaliya saameynta u gaarsiin doono waayo isbuuc ka hor baan xamar joogay alxamdulillah caafimaadka iyo dhaqtariinta isbitaalada waan arkay sidii u shaqeeyaan waxaan arkay xataa kaniini madax xanuun baabi'i hadaad raadisid ma helaysid kaniini fiican oo madax xanuun baabi'i ka baabi'inayo marka waad dareemi kartaa dhibka meeshuu ka jiro waxaad arkaysaa cudurro oo dhaqtariinta ay daaweyn karaan si fudud oo dad badan oo Soomaalida ay u dhimanayaan waxyaalaha aan ka hadli doono ayaa waxay tahay ka hortagga maxaa horta looga hortagaa viruska number 1 oo la isku wada raacay in qofka uu gacmaha iska dhaqo markaste waayo magaalada aadaysa albaabada furaysa qof baa salaamaysa gacmihii James Bagari ya marka qofka waxa laga rabaa inuu gacmihiisa iska dhaqo tan labaad oo aniga dhinacayga iyo masajabkiga aan kala soo baxay waxay tahay cuntada la isla cuno mase dadka cuntada isla wada cuno hadii noqoto xaafad hadii noqoto maqaayad inkastoo Soomaalida ay caan ku tahay cuntada la isla cuno taas oo la iska ilaaliyo tan saddexaad guri joogista in la badiyo qofka inuu gurigiisa joogo xamar mase Soomaaliya waa laga helmin dhigi kari laakiin lacalla hadii laga helo qof kasta waxaan jeclaan lahaa in uu gurigiisa joogo hadduu iskuul aadi jiray iskuulkiisa uu ka baaqdo hadduu dugsi aadi jiray uu dugsigana ka baaqdo tan labaad waxa viruska uu keeno ayaa ku sheegaya masasada loo garto qofka viruska hayo waa hargab waa kili maxaa lungs marka walaalayaal waxa aan rabo inaan igala hadlayo waxay tahay mar labaad mar saddexaad inaan iska warqabtaan viruskan virus aad u xoog badan weey waa virus dadka u keenaya dib khaasatan dadka kugu sakeeyo xaafadda la degan tahay familkaaga hooyada aabaha cunugaaga marka fadlan hal iska warqabo Soomaali waa indho ku garaadida viruskan goorta la ogaanayo waa goor dadkii area-dii dhan aad degneed aad qaadsiisay ka bacdi ayaa loo ogaadaa arrinta ay soo shaac baxday wax laga sameyn karo malaha markaas 8 qof 6 qof 7 qof baa markaas qaadsiisay qayb baan rajeynayaa subscribe saar like saar comment saar waxa
ka og tahay mase aad ka warqabtid about this virus. Thank you so much and thanks for watching this video.